maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun ku riday nin lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish isla markaana dil geystay ninkan xukunka lagu riday oo lagu magacaabo Maxamed Cali Maxamed ayaa xiraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku eedeysay inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish isla markaana magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Sinai uu ku dilay askari ka tirsan ciidamada ilaalada deegaanka Xamar gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuuto ayaa sheegay in ninkani kooxda Daacish uga biiray buulaleyda Goolis ee gobolka Bari isla markaana xilliga la qabanayay uu dilay kormeere saddexaad marxuum Maxamed Cabdi Dhuxul oo ka tirsanaa ilaalada deegaanka Xamar bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Maxamed Cali Maxamed Faarax 20 jir ah ina Farxiyo Cabdi Mursal ku dhashay Kismaayo kaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay urur hubeysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis gaar ahaan kooxda Daacishta Soomaaliya sidoo kale eedeysanaha waxa si gaar ah loogu eedeeyay in uu dil bareer ah u geystay marxuum kormeere saddexaad Maxamuud Cabdi Dhuxulow oo ka tirsanaa ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar taariikhdu markay ahayd 5tii bishii 8aad 2019 dilkaas oo ka dhacay suuqa Sinai degmada warta nabadda ee magaalada Muqdisho ciidamada amniguna ay qabteen dilka kadib eedeysanaha oo ku hubeysan bastoolad Belgium ah dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane Maxamed Cali Maxamed Faarax uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in uu ka tirsan yahay kooxda Daacish oo uu kaga biiray buuraleyda Goolis ee magaalada Boosaaso gobolka Bari isagoo qayb ka ahaa jabhadda Daacish ee ka dagaalanta Miraale kadibna ay kooxda Daacish u soo bedeleen qayb dilalka qorsheysan ka fulisa magaalada Muqdisho eedeysanuhu wuxuu sheegay in uu qayb ka ahaa fulinta laba dil oo qorsheysan dilka koowaad waxaa fuliyay horjoogihiisa Xuseen wuxuuna u ahaa hab lagu baraayay sida dil qorsheysan loo fuliyo waxaana target ahaa askari ay ku dileen suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho dilka labaadne waxa wada fuliyay eedeysanaha iyo horjoogihiisa iyagoo dilay marxuum Maxamuud Cabdi Dhuxulow ciidamada amniguna ay qabteen eedeysanaha oo ku hubeysan bastoolad Belgium ah markii ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ku sugan xilli subax ah rugta booliiska suuqa Sinai ee degmada warta nabadda ay maqleen rasaas ka dhacday meel u dhow oo dhanka suuqa ah markii ay ku baxeen ay arkeen xabadaha oo ku dhacay marxuum Maxamuud Cabdi Dhuxulow kadibna ay ceyrsadeen raggii dilka geystay sidaasna ay ku qabteen eedeysane Maxamed Cali Maxamed Faarax oo ku hubeysnaa bastooladii uu dilka ku fuliyay markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah koow dukumiintiyada ay ka mid yihiin cadeynta iyo qiraalka laga qoro eedeysane Maxamed Cali Maxamed Faarax labo sawirka iyo qoraalka isbitaalka oo cadeynaya dhimashada marxuum Maxamuud Cabdi Dhuxulow saddex bastoolad Belgium ah oo uu ku hubeysnaa eedeysanaha markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada dacwada oo kala ah xeeraalyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dambiile Daacish Maxamed Cali Maxamed Faarax uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamuud Cabdi Dhuxulow dawiil cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan wabillahi tawfiiq Bashiir Yuusuf Nadaara TV-ga caalamiga ee dalka magaalada Muqdisho.